hadduu kaa qaldan yahay isteelka waa kugu qalad inaad la qosasho hablaha qalanjada bilaahi caleeg isdhis qof yahow mudane iyo marwo ma taqaanaa muhiimadda dharku inoo leeyihiin alla maya ina mari anaa kaa dabageenaya muhiimadda dharku inoo leeyihiin waxaa weeyaan dharku waxay naga difaacaan kulaylka qabowga roobka dabaysha qaniiniyada cayayaanka sidoo kale waxaynu ka helnaa diirimaad marka xiga dharku waxaynu ku qurxinaa jirkeenna waayo xigmad baa tira iska guro lafaha xaragana ha ka tagin si aad qadka dhexe isteelkaaga kor ugu qaado waa inaad leedahay qaanad adiga kuu qaas ah kuugu jira dhar kala jaad ah waayo noloshu waad u da'yar tahay weli waa daruuri shay kasta waa inaad wax ka leedahay ugu horeyn labisku waxaa loo qaybiyaa 2 nooc qodobka koowaad iska dhis labiska caadiga sida jeeniska shaararka jaakadaha saraawiisha iyo qaar kaloo badan qodobka labaad waa muhiim inaad leedahay sida suudadka jaakadaha saraawiisha iyo shaararka classiga ah suumanka saacadaha kabaha iyo muraayadaha qodobka saddexaad ku dadaal inaad iibsato dharka sportiska iyo kabaha qodobka afraad samayso dhar lagu joogo guriga qodobka shanaad waa inaad qayb ka leedahay dharka hidaha iyo dhaqanka iyo waliba safaariga tuliinka haddaad tahay xaaslo waa muhiim inaad leedahay dharka lamaanaha isku eg iyo kuwa hurdada qodobka toddobaad xisaabta ku darso xilliyada qabowga iyo kulaylka waa inaad leedahay dhar ku habboon sida funaanadaha shaararka baatiga iyo wixii la halmaala xasuusno meel kasta waxay leedahay dhar ku munaasib ah hadday tahay goob shaqo xaflad munaasabad casho waxbarasho romantic iyo wixii la mid ah hadduu dooqu kaa lumo waxaad huruftaa naftaada kun jeer hingaadisaa isteelkaaga haddaynan u mahadnaqi karin dadka dharka inoo habeeyey bilaahi caleeg si hagaagsan aynuu xiranno maryaha yaynan ka hilmaamin kaawiyadda maxaad iga habranaysaa laagta sheerta iyo sabskraibka ma habeen horaan ku shiiday adaan kula hadlayaa